muharramna waxay la gaartay waxyaalo rasuulkeena maxamed alayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday waxyaalaha waxa kamida nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu yiri afdalu siyam ba'da ramadaan inuu yahay siyam shahrillahi almuharram soom waxa ugu fadli badan baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado bisha ramadaan soomka la soomo bisha ilaahay ee la yiraahdo muharram baa nabigu alayhi salaatu wasalaam sidoo kale masguud ahaan ama bisha si guud ahaan ama saddex maalmood bisha muharram ay ka kooban tahay qofku inuu soomkeeda marka badsado ama xagga hore ama xagga dhexe ama xagga bilowga uu ka soomi karaa waxa sidoo kale fadli gaar uu ku soo aroray maalinta yawm ashura oo rasuulkeena maxamed alayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyay soomkeeda nabigu yiri waxa lagu dhaafaa sanad tagay ayaa dambigiisa lagu dhaafaa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxana ay culimadu tilmaamaan oo xadiiska nabiga alayhi salaatu wasalaam ku ansaxday in sababta markaa soonkeeda keensatay ay tahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta ay tahay maalinta ilaahay badbaadiyay nabiyullaahi Muusa alayhi salaam fircoon iyo dadkiisina ilaahay uu rogay oo halaagu biya ku hafiyay dadna nabiyullaahi Muusa uu soomay shukran lillahi azza wa jalla isagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahadnaqay rasuulkeena maxamed ahana markuu yimid magaalada Madiina oo arkay nimankii yahuudada oo soomaayay arintaana ay u sheegay nabigu alayhi salaatu wasalaam nahnu awla bi Muusa minhum annaga ayaa ka xigna marka iyaga Muusa ayaa nabigu alayhi salaatu wasalaam marka maalintaasi marka koowaad dhacdada taariikhiina way dhacday oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu badbaadiyay nabi iyo dadkii rumaysnaa halaagay cadow weyn oo kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala acdaadiisa oo fircauna oo sheegtay marka ilaahnimo sheegtay rabbinimo dhibaatooyin badan soo gaarsiiyay dadkii marka reer bani Israa'iil oo waqtiga dad marka muslimiin ahaa sidoo kale soonka maalinta la soomay markii nabiga alayhi salaatu wasalaam looga warramay ya rasuul yahuud ayaa marka inuu iswaafaqayna hadii maalinta marka la soomo rasuulku waxa uu sheegay alayhi salaatu wasalaam hadii aan noolaado sanadka soo socda waxaan soomi doonaa baa nabigu alayhi salaatu wasalaam maalinta sagaalaad marka ahlu cilmigu waxa ay tilmaamaan qofku marka uu waxa weeyaan yawm ashura la soomayo waxa fadli badan in marka lagu daro oo qofku uu soomo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad uu israaciyo sidoo kale waxa fiican in maalinta 11aadna uu ku daro saddexda maalmood oo wada socdo qofku uu soomo way culimadu dhan si tiradu marka aanay uga khaldamin oo tusaalaha dhinac marka laga eego waxay noqonaysaa mukhalafatan lil yahuud iyadoo yahuud la khilaafayo yahuudiyo ashura kaliya maadaama ay soomaan maalinta sagaalaadna marka lagu daro sidoo kale si aan khalkhal aan u dhicin oo waxa laga taariikhda in bishu xilli ay bilaatay dadku marka aan la ogeyn ama marka dadka qaar ay moogan yihiin iyadoo bishu marka bilkow ama aan bilanba inay moodeen inay bishi bilatay marka taana waxa laga badbaaday yawm ashura qofku ku beegmaya haduu soo maalintii sagaalaad iyo maalintii tobnaad iyo maalintii 11aad ayaa waxa ay tahay qofku marka inuu ilaaliyo oo marka waxa weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadi uu soomo isagoo ilaahay ugu dhawaanayo waliba maalintaasna acmaal kalena qofku uu qabto oo ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyadiisa inuu ilaahay bariyo inuu ilaahay u toobad keeno inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf u weydiisto ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka bariyayna in rabbina waafajiyo acmaasha khayrka guud ahaan gaar ahaan yawm ashura